بسم الله وزاهر فيديو maanta waxaa u hadli doonaa optionska oo SPSS-ka leeyahay. Kole optionska waxaa waaye meelaha settingka ah oo waxyaalaha oo basic ah laga bedelo oo qofka haduu rabo qaabka asiga wax u rabo inuu u saxdo oo ama xaga fontiga ahaado xaga structure-ka ahaado iyo xaga meelaha tableska iyo meel kasta. Marka option-kan badan uu badan yahay oo waxada oo aan soo wada koobi karna ma aha, laakiin se waxaa jecelnahay inaan xawaaira ka taabano meelaha ugu muhiimsan ee mataqaana oo SD karo dadka u baahan ama ardayda u baahan inay wax ka fahmaan. Marka ugu horeysa waxaan tagaynaa option-ka wuxuu ku yaalaa edit-ka, kadib waxaad tagi doonaa options. xagga markaad tagno kulli waxyaalo badan jiro oo wada ujeedin type-kan ah. Marka option SPSS-kan wuxuu leeyahay options aad u fara badan u leeyahay oo qayb kasta ah waxay ku xiran tahay adiga baahidaada iyo qaabka u rabto inaad wax u sameyso. Okay, hadda journal-ka kale hadda ka taabano journal-ka kale daarabno oo kale inaa hadda variable listiga oo kale wax ka bedelno oo meelaha ugu muhiimsan ka mid ah variable listiga oo ku soo muuqanaya markii checkbox-ka aad joogto. Hadda rabto inaad display label aad ku rabto ama inaad display names-ka aad rabto iyo inaad rabto alphabetic ahaan inuu kugu soo dhigo iyo in file-ka hadba qaabku uu yahay inuu kugu soo bandhigo. Marka intaan wax ka bedelin ama kor aan ku laabano aan soo fiirino sidoo yahay. marka xagaan tagno analyze kasoo qaad descriptive rabnaa inaan sameyno frequency. Marka xagaan taaganahay hadda waxa u jeedaa variableskayga marka fiiriso waxa u jeedaa in uu labelka soo sharaxay oo soo muujinayo halka uu ka soo muujin lahay variable name-ka. marka hadda adiga aad jeceshahay inaad variable name-ka ka dhigato waxa oo markasta ay variable name ku noqoto waxa sameynaysaa waa tagaysaa edit-ka option-ka, kadib waxaa tagaysaa journal meesha hadda ay ku taagantahay display label-ka waxaa ka dhigi doontaa display name. haddaa rabtan alphabetic waa ka dhigin kartaa, haddaa rabtan sidaa ku dayan kartaa. Okay, marka okay dhahno ku weydiinaa oo ka proof gareynaa inaad rabto in kale, kadib okay dheh. ka okay dhahdid aan tagno meeshii aan fiirino ama xaggan aad tagi karnaa oo hore aan soo fiirinay recall-ka. xaggan markaad tagto frequency dheh, markaa fiiriso waa ujeedaa meeshii hadda oo label-ka ahay wuxuu yahay variable name-ka kaaga dhigay. marka sidaasay ku ahaan doontaa markastaa soo gasho SPSS-kaaga variable name-ka kuu soo muuqan doono. marka option-kaas waa optionada ugu muhiimsan waaye oo qofka rabo inuu rabo inuu label-ka badan uu dhibaayo oo rabo just inuu variable name-ka oo ka dhigto. Okay, qeybaha kale haddaa u galno oo leeyahay optionska oo SPSS-ka waxaa ka mid ah mataqaanaa hadda qeybtan kale language-ka muhiim ah English-ka badanaa noo doorno. qeybtan viewer-ka ka mid ah viewer-ka oo kale haddaa rabto oo kale inaa items-ka aad iska bedesho qaababka ay leeyihiin inkastoo hadda kan qeybtan badanaa lama isticmaalo. haddaa rabto waa bedelin kartaa icons-kii qaabka oo output-ka ku yahay marka kusoo baxayo, laakiin meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah display commons in the log. marka logaaga fiirisid tusaalahaan hadda marka logaaga fiirisid haddaa xeerno sug hadda frequency-ga iyo waxyaalaha oo aad doorato badanaa wuu ku soo muuqanayo oo wuxuu kaa soo baxay halkan. marka haddaa rabto kale inaa commentiyada iyo waxyaalaha qaar iska xirto oo ku soo raacin mataqaanaa comment-ka oo ka saari kartaa oo si click tiktok ka qaadaysaa kadibna waxa ku ka qaadmaya. hadda laakiin sida ay ugu dhaafo aan tagno qeybahan kale. hadda qeybtan data-da kale waxaas dhigi karaa wax weyn hadda oo u baahan in laga bedel ma aha. qeybtan width-ka iyo display-ga hore ugu soo hadalnay haddaa rabto waa bedeli kartaa automatic waxaa ka dhigin kartaa hal decimal-ka in oo hal mar ka dhigato oo adiga adjustment. laakiin wuxuu ku fiican markasta in adjustment ku ahaado maxaa yeelay variable kasta oo ka duwan yahay variable kale marka in adiga gacantaada ku doorato oo markasta adiga aad maamulataa fiican.
qeybahan kale sida naftigiisa haddaa rabto sanadaha qaar inaad soo yareyso oo kale customer dooran kartaa sanadka kasta inaad soo yareyso aad dhahdeed sanadka automatiga iga qaado markasta oo data soo geliya waxaa iga bilowdaa sanadkaas ilaa sanadkaas waa dhigi kartaa qeybahan saas muhiim ah qeybtan waxaa filaa saas baahi badan looma qabaayo aan tagno qeybta outputka qeybtan outputka oo kale markaa rabto inaa variableka oo kuusoo muuqanaa in itemka waxaad dooran kartaa inaad label ahaan usoo muujiso ama labelkii magacaas la socdo sidoo kale markii labelka tahayna inaad labaduba soo muujiso dhici kartaa aadba adiga qaabka jeceshahay aa kusoo bandhigi kartaa teeda kale haddaa rabta in markastoo descriptive aad sameynaysana inaa oo kuusoo muuqdo chartiga ama outputka waad dooran kartaa markasta oo chartiga aa rabto oo kusoo galaa laakiin anig badanaa ma jecli maxaa yeele markaa rabo inaad chartiga aad sameysto keliya rabaa inuu isoo muuqdo laakiin haddaa jeceshaha markasta oo descriptive aad sameynaysa inuu kuusoo muuqdo mataqaanaa chartiga waa saari kartaa okay qeybtan chartiga ka hadlaa chartiga si gooni ah usoo doonaa video gooni ah oo nooc kasta oo chartiga ah laakiin haddaa rabto oo kale tusaale ahaan inaa formatka wax ka bedesho oo adiga aad rabto format gooni aad sameysato waxaad sameyn kartaa inaad ka bedelato meeshaan oo dhowr formada jiro oo badan oo qofka uu dooran karo oo ay ku duwan tahay template-ka ku duwan tahay template qaar waxaa waaye badanaa kan template-kan kale iska fiican yahay sida waadku ogyahay qeybahan badanaa website-yada oo kale lagu isticmaalaa badanaa laakiin aniga waxaa rabaa badanaa optionka inuu ii ahaado haddii xaggaan imaado kale fontiga taa waa bedeli kartaa oo waxaa ka dhigi kartaa fontiga oo chartiga waa qurxin kartaa oo waxaa dhigi kartaa saan igu daayba oo saasna kuu ahaado marka oo different option aa jira oo qoraalada kala duwan qaabka rabto fontiga inuu kuu noqdo qaabka jecesha waa ka dhigin kartaa okay marka sidoo kale waxaa bedeli kartaa mataqaanaa buttonska gudaha bedeli kartaa black and white ka dhigin kartaa sidoo kale markaa joogto halkan waxaa sameyn kartaa inaa soo saarato kale outer aa u sameyso oo aad soo dhido haddaa rabtona waxaa sameyn kartaa inner inaa gudaha gelisa ama labaduba inaa isku sameyso oo aad soo wada geliso marka adiga iyo naqshadiisa u jeceshahay mar inaa fadhiisiso aa imaado oo aad optionka tagto hadda qaabka adiga u jeceshahay inay kuu soo muuqdaan inaa hamar aad doorato aad fadhiisiso wixii ka dambeeyo oo sbs aad rangareynaysana qaabkaasay kugu soo bixi doontaa marka qaabka jecesha haddaa rabta x iyo y inay kuusoo muuqdo or gradient wax dhan waa dooran kartaa oo wax oo optionkaas waa dooran kartaa haddii oo qaybta scatterkana waa sidoo kale haddaa rabto oo kale inaa badesho oo kale waa tagi kartaa waa bedeli kartaa xagga fontiga oo kale nooca adiga rabtaa ka dhigin kartaa maybe badanaa x iyo y oo kale waxaa ka dhigin kartaa fontiga waa bedeli kartaa haddaa rabtana waxaa bedeli kartaa xagga waxaa bedeli kartaa designka qeyb kasta waxaa ka dhigi kartaa inaa ka dhigata oo kale shape gooni ah asana waa ka dhigin kartaa sidoo kale option badan uu leeyahay asana sidoo kale oo ah inaad bedesho oo aad doorato naqshad gooni ah naqshadan oo kale aarka u ogyahay marka naqshooyin badan aa jiro oo aad dooran karto marka optionku aad u badan yahay adiga midkaa jeceshaha ka dooran kartaa kadibna waa save garaysanaya wixii ka dambeeyo saasay ku ahaan doontaa marka optionka markaa aad dooran kartaa qaybta kala galan waxaa pivot tableka hadda oo descriptive-ka kuusoo muuqanayo naftirkiisa waa dooran kartaa hadda systemka saa dooran haddaa rabta abs taalaa ka dhigin kartaa haddaa rabta waxaa ka dhigin kartaa hadda midka qaladkaa rabta nooca rabta hadda designka oo kale haddaa rabto just apply dheh kadib okay dheh marka waxaa tegaynaa outputka markaa tagno ama aan tagno just descriptive aa dhahno maybe frequency maybe aan dhahno gender kadib okay dhahno hadda ujeedaa naqshada oo wuxuu ku noqday noocaad rabte haddaa rabto waa bedelin kartaa oo option badan aa jiro oo naqshadaan kula haddaa rabto waa ka dhigin kartaa just aan recall dhahno aan ku celino waa ujeedaa marka naqshadaha way badan yihiin naqshadaa rabta jeceshahay inaa tableka kugu quruxnaado kuu soo baxo waa dooran kartaa okay waxaan filaa qeybtaasna waa fahamteen adiga si kusii falaad tag qeybo badanaa jiro adiga midka ugu dambeyn noocaa hesho ka heshaas dhigi karta noocaana ugu fiican noocaasa ku save garayso wixii ka dambeeya marka outputkaaga saas oo ku noqon doona marka waxaa filaa qeybahan lan fileka locationka waxweyn maaha scriptigan sidoo kale firaa multiplicationkana sidoo kale marka qeybtan syntaxkana hore ugu soo hadalnay haddaa rabto kale color kasta wuxuu u taagan yahay micno qeybtan
flag oo kale quoteska u taagan yahay keyga commonka marka haddaa rabto kale in hataa inaad badbasho kalarkaas oo kale wax ka badasho waad dooran kartaa marka waxaan filaa intaas karaa waa basic u muhiimsan oo qofka u baahnaan karo waxyaalaan kale haddii adiga baahidaada gaarka ah oo qabtana waa fiirin kartaa waa easy oo adiga inkastoo badanaa dhankana u badana meelaha wax ka badasho waxaan filaa casharkeen qaybtan SBS optionka qayb intaasan uu ogyahay haddii aa su-aal qabto please commenty kasoo hadal wixii tala ah iyo wixii oo dheeraada as dhigi karto muhiim waaye nala soo sheergaray commenty kadibna waxaan isku daynaa inaa video ka sameyno insha allah marka casharkeen xaggaas uu ogyahay sidaas iyo nabadgelyo